السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن السلام منا أمد إسلام كامل البجوبتان انتي حانوسا إلهي سبحانه وتعالى عافماذا سيو انتي عذركن آن سو قارنا إلهي سبحانه وتعالى مسو قار سيو عالمك مسلمين تميل البجوغان إلهي وحان كبرين عمركن نقمارتين نقد القاضو الحمد لله رب العالمين الذي لا إله إلا هو عرش العظيم الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إلهي سبحانه وتعالى بمهد إسكاله نقو أرزاقي إسلام نمو إلهي قاصي مهد يا رحمة شغناتي إلهي سبحانه وتعالى يا كوفا عيب ودن إلهي سبحانه وتعالى بمهد يمارتي قدرني أسغناتي ما أنت توبيجينا أما موضوعنا وحكو آدين هاي niman say ayagaba sheegayaan diinta ka baxay oo say sheegayaan baqaatay diinta masiixul badbaadiyay sheegayaan diinta masiixul badbaadiyay ilaahigeena badbaadiy masiixiga raacna ay leeyihiin baadil ay iskugu yeerayaan waxaan been ahayn ay iskugu yeerayaan bal waad la dhageysan doontaan waxa ay ka hadlayaan waad ila dhageysanaysaan insha allahu tacaala. bal aan dhageysano markaan dhageysano kadib ayaan wixii jawaaba siin doonaa insha allahu tacaala biidni illaahi hadduu ilaahay yiraahdo. dhageysi wacan kiisimadiga daawasho wacan inuu yahay sayidkayga in ruuxa quduska laga uuraystay oo uu ka dhashay maryam oo bikra oo uu ku hoos lacay Pontius Pilatus oo isku tilaabta lagu qodbay oo la aasay inuu soo noolaaday maalintii saddexaad oo dhimashadu ay xajin weysay. sidaa daraaddeed waxaan helay nolol farxad iyo rajo leh. waxaan go'aansaday ciise masiix inaan raaco 2002gii kuma fakirin weligay kumana tashan inaan masiixa rumaysan doono ama marnaba aan rumayn doono. waayo kitaabka quduska waxaa ku qoran ninka ama qofka bini aadanka qalbigiisa waxaa ku jiro talooyin fara badan ee uu ku socdo. habase ahaatee waxaa taagnaan doono talada rabbiga ayaa taagnaanayso. sidaa daraaddeed haddii aan idiin sheego sababta aan ugu marqaati furayo ciise masiix waxay tahay in hadalka ilaah ee kitaabka quduska laftirkiisa uu odhanayo haddaba taga oo qurumaha oo dhan magaca ilaaha aabbaha magaca ruuxa quduska iyo magaca ciise masiix sayidkeenna ku baabtiiso oo bara waxyaalihii aan idin baray oo dhan una sheega runta waxay tahay. waxaan doonayaa maanta dhammaan dhallinyarada Soomaaliyeed dadyowga Soomaaliyeed gabar iyo wiil meel kastoo dunida ayaa waxa qof walaal ah ayaa wuxuu soo diray video aniga ma garanayn video waxa uu yahay waan iska daawaday marka video wuxuu ahaa qof bini aadan ah oo la dilay oo lagu dilay magaca Allah lagu gowracay waxa dadkeena quraanka akhriyay marka waxa qalbigayga uu dhaawacay arintaas qof bini aadan ah oo ku dhintay magaci Allah ku dhintay waxay ila noqotay wax maskaxdeeda ka weyn. waa habeenkii ugu horeysay oo aan maaragtay ka shakiyay ama aan ka carooday waxay tahay Allah iyo kitaabkiisa aan ka carooday aan weeray sidee bay ku dhici kartaa in magacaaga sharafta leh ciisada leh maxay tahay nolosha bixiya qof bini aadan lagu gowraco oo ku dhinto sidee ku dhici kartaa. marka habeenkaas waxa dhacday aniga in maxay tahay ilaaha nool ee xaq lagu caabudo uu yimid oo aniga qaaday. aniga hadda waan garanayaa inuu yahay rabbi ciise masiix laakiin marka ayada ma garanaynin aniga waa la qaaday waxa la dheemiyay jannada. idinka laakiin hadda maqashaan waa la dheemiyay waxa leedahay ma nabiyad ba sidee ba lagu dheemin karaa. laakiin ilaahay qofku doonayo dhan wuu isku muujiyaa ama ha ku qaado jannada ha ku geeyo ku riyo ama ha iska tuso oo maaragtay erigiisa ha ka dhixtiso xagan ha ka helo. waxaa jirta in marka rabbiga ay tusay jannada meesha quruxda badan uu yiri xagan waa jidka iyo runta iyo nolosha maxay tahay kitaabka quduska ee ku yaalo badan oo aniga weligay akhriin
kitaabka bible-kan weligay ma akrinin saa mar hore ugu sheegay qur-aankan baan akhrisan jiray aan sheegayay oon habeenkaas aan ku hadlayay oon leeyahay ciise masiix unbaa ah jidka iyo runta iyo nolosha meesha quruxda badan uuna geeyey markaas wuxuu leeyahay ilaahay igu yiri maxay tiin magaca rabbi ciise masiix isagoo isku kay tusay ayuu wuxuu yiri jidkii waa kana xaggeeda fog oo mugdi ah ayaa la tusay marka waxaa lagu yiri filmkaaga xagga markaasaan waxaan maalintii ku soo kacay anigoo faraxsan laakiinse waxaan isir maxay tahay ciise masiix maxaa la yiraahdaa jidka iyo runta iyo nolosha maxay tahay waxaan markaas waxaan ka raadiyay internetka waad maqashaan waana dhegaysateen waxa uu ka hadlayo baadil ayuu ka hadlayaa ilaahay baa dhintay oo soo nooladiiba hadda naga dhadhicin rabaa waxay sheegayaan tanna waxay leedahay ilaahay baa ii imaaday waa masiixigii ilaahayga ah aa qaaday jannadana igeeyey ay ku leedahay subxaana allah ilaahay ayay ku tilmaamayaan inuu wax dhalay ilaahay ayaa xumaan ulkoofan been iyo been iyo bagabaandabay iskugu sheekeynayaan barogomaada iyo been ayay iskugu sheekeynayaan xaqiiqda dhabta ah ayay ka leexanayaan waxaa xaqiiqa ah ilaahay subxaana wa tacaala inuu keligii yahay wehelna oon lahayn ayaa xaqiiq ah maryamana ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ku uumay caloosha ciise waa addoommo ilaahay addoommadiisa addoommo kamid buu ahaa wuxuu nagu fadli dheeraa ciise ilaahay baa soo dirsaday rasuulna ka dhigay wuxuu nagu fadli dheeraa ilaahay baa mucjisadiisa bilaa aabbo la-aan dhigay hooyadiibuu ku uumay bilaa aabbo hadday ciise ay bilaa aabbo kula yaabin yihiin ay arkaan nabillaahi aadam hooyihii aabba inuusan lahayn may arkaan hooyadeen xaawo inaysa hooyo lahayn oo feedhii aadan uu ka uumay ilaahay subxaana wa tacaala marka ilaahay isaga xumaan ulkuufan ilaahay bay ceeb korka ka saareen laakiin ilaahay waa ceebka saliim ilaahay subxaana wa tacaala ceeb ma lahan subxaanahu wa tacaala ceeb ma lahan asagoo ka hadlayo iskana baryeelay suurat likhlaas ayuu soo dejiyey bacda acuudu billahi min ashaytaani alrajiim bismi illaahi araxmaani araxiim qul huwa allahu axad qul waxaad dhahdaa nabigii ilaahayow allahu axad ilaahay waa axad wehelna ma lahan allahu samad waana sayid deeqtoon lam yalid wax ma dhalin walam yuulad isna lama dhalin walam yakun lahu kufuwan axad wax lamidana ma jiraan ilaahay subxaana wa tacaala ayaa soo dejiyey suuraddaas iskagana baryeelayo inuu ilaahay subxaana wa tacaala uu keligii yahay oo waxna aan dhalin asna la dhalin ilaahay subxaana wa tacaala baa ku baryeelay iskagana baryeelay suurat likhlaas haadihi buhtaanun itmun cadiim been ayay iskugu sheekeeyeen masiixiga badbaadada ayay ku leeyihiin nabillaahi ciisa markii maalinkiiba malqiyaama ilaahay wuxuu leeyahay war ma adigaa sabab u ahaa inay ku caabudaan ilaahay subxaana wa tacaala isagoo weydiinaysa addoonkiisa ciise isagoo weydiinaya calayhi salaatu wasalaam nabi ciisena waa iska baryeelay wuxuu leeyahay ilaahayow anigu arrintaas beri baan ka ah marka waxa ay dadka ugu yeerayaan waa baadil laakiin annaga xaqa ayna ugu yeeraynaa kusoo dhawaada diintaanada ilaahay agtiisa waxaa laga jecel yahay diinta islaamka ina diina cinda allahi alislaam ilaahay agtiisa waxaa looga jecel badan yahay waa diinta islaamka ah rusushoo dhanna waxaa loo soo dhiibay waa diinta xaqa ah annaga xaq baa inagu soo dhaweynaynaa inagana baadil baad nagu soo dhaweynaysaan ood leedihiin kusoo dhawaada baadilka war baadil baad haysataane kusoo dhawaada diinta islaamka oo nimco ay leedahay nimco ay tahay diintaanada waa diinu nasteexa qof kasta waa soo dhaweynaa annaga qofka diinta haddaan islaamnahay dadka ma cayrino waxaa inagu soo dhaweyneynaa ilaahay subxaana wa tacaala inuu towbad ina siiyo towbadda ilaahayna waa furan tahay waqti walbo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu tuubuu ila allahi towbatan nasuuxa war ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay towbadda waqti walba way furantahay usoo gala faqultu istakfiruu rabbakum inahu kaana qafaara mar kasta istikfaarta way furan tahay ilaahay subxaana wa tacaala haddaad istikfaar weydiisatana waa ku soo dhaweynayaa oo maaragtay ilaahay subxaana wa tacaala waa kugu farxayaa
marka waxaan leenahay soo dhawaada baadilkaad haysataan kasoo taga islaamnimaad ku dhalateen waad ogtihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu yahay rabbulmashriqayni wa rabbulmaqribayni inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yahay waad ogtihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala khalaqa asamaawaati inuu ilaahay samada u uumay iyo walardi iyo arlada iyo wamaa baynahumaa inta u dhaxaysaba marka kusoo dhawaada diinta islaamka baadilka aad ku sugan tihiin haddii ilaahay hanuun inala doono ilaahay subxaanahu wa tacaala baa ina soo hanuuninayo haddii ilaahay hanuun inala doonina kuwa khasaaray oo maaragtay oo kuwa khasaaray adduunya aakhiraadka mid noqonaysaan marka waad ogtihiin gaaro markay dhintaan oo naarta la geeyo ayaa waxay leeyihiin yaa maaliku liyaqdaa calaynaa rabbuk baaligow noo weydiiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu hal mar uu naga saaro markaasuu 40 saaraysaan marka waad ogtihiin laakiin indhahaad iska tiraysaan naarta markii la weydiiye war naarta maxaa ina la geliyay markii la yidhaahdo waxay leeyihiin qaaluu lam nakun min almusalliin kuwa tukan jira maanu ahaan jirin bay leeyihiin marka maxay ku tusaysaa kuwa naarta hadhow inay ku calaacalayaan ayay ku tusaysaa oo maaragtay ay hadhow calaacalayaan calaacal waxba kuuma tarayso walaalkayow haddaad nooshahay kusoo dhawow diintaadan qiimaha badan ee sharafta badan marka waxayna leenahay soo dhawaada walaalahanadi aad tihiin marna inama cagaajinayno haddaad ridowdeen oo diinta islaamka aad ka tagteen ilaahay wuxuu ina siinayaa haddana jaanis aad kusoo noqotaan ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ina siinayaa soo dhawaada ayaana leenahay ilaahayna waa ceebka saliim ilaahay subxaanahu wa tacaala inagoo ina khalqay inagoo waxba ahayn buu caloosha hooyadiin iyo caloosha hooyadiin buu inagu khalqay maaragtay maantana maaragtay erayada aad ku hadlaysaan ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa aad ka barateen oo ilaahay ina baray ayaad maanta maaragtay ku kufrayseen marka laakiin waxaa jaanis inay ah stiil intaad nooshihiin aad soo dhawaanaysaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala toobadiisa aad maaragtay aad kusoo dhawaadan laleeyahay oo walaalkii shaakir sii shargalee barnaamijkan asalaamu calaykum